وسلامتي لمنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا أهانتي با Soomaaliyeen meel walba aad joogtaan ama aad ku sugan tihiin waxaad si toos ah aad igala socotaan my account-kayga Facebook-ga Sahal Aqil dhammaantiin waxaan idin leeyahay inta dhibaatada u naxariisto inta caafimaad qabtana markaas Ilaahay caafimaadkooda u siyaadiyo inta caafimaadkooda markaas la tacaalayna Ilaahay markaas ha u booganayo waxaan rabaa inaan ka hadlo ama jawaab yar oo wax yar oo xoogaa cilin yar oo madax xanuun yar ugu keentay marka inaan way ishaan waayaan soo daayo idinka nila wada waa si shirgareysaan waxa iga gadaalaya astaanteeni sidoo kale faraha iyo gacmaha igu xiran oo astaanteeni inta badan ba cid aan markaas taas aan kaga heeysanayn ma jirto ama cid aan markaas aan kaga jeclaysan arintaas ma jirto waayahay doqonka madaxweyn BK ambassador-kaasi kulli anigu waxba uma qarinayo dhammaan dadka ka soo wada jeeda ama markaas Soomaalida waqooyiga waa isku wada mid qof walba idin ka mid soo qaban doona oo arintaas ugu dhaliilaya ama ugu taageersanba dadka ka soo jeeda waqooyiga Soomaaliya markaas magacoodu yahay Somaliland la baxay saqiir iyo kabiir ba maahan markii koowaad maahan markii labaad maahan markii saddexaad BK waan ka filaynay inuu arintan mar walba dhigi doono kuwa badan oo qarsoon idinkeedii ka midanayn lahana waan filaynaa qaraxii Zooba 17 October oo adduun weynaha oo idin gaar iyo muslim bay inoo daqnadeen aad marqaati ka tihiin taalada Faransiiska xataa inoo laga dhashay ilmo life soo galay ilka wasaq lahaa joogay geyga Soomaalida laga nacib yahay waxay soo caayeen Soomaaliya waliba qaraxyadaas dibkaasna ay ku farxeen BK wuxuu ku baxay baasaboorka dalka Soomaaliya BK wuxuu dalka uu joogo ku tagay baasaboorka Soomaaliya Soomaalilama wax loogu fiidiyay wuxuu maanta caayay ama ku jisaaray ama aad u aflagaadeynaya Soomaaliya wuxuu ku faraxsan yahay qarax caasimada Muqdisho ka baxay ama ka dhacay musiibadaas Ilaahay aan ka magangalana mar kale nooga dhacaan balse ninkaasi wuxuu aflagaadeeyay qarannimadeeni dadnimadeeni wax laga aamusi kara maaha dadkiina daawanaya aad idinka xataa u akhlaaq xuntiin marka si loo eego because gacmihiin waxa ku xiran wax maamulka waqooyiga calanka Soomaaliland oo dadka Soomaaliland nacab dadka Soomaaliland jeclow wax lagu xumaaday idinka because gabdhigu waxay ku libasan calankaas wiilasha warkan midkan quruxda badan ma gacan isaga xirataan midkan quruxda badan ma faraanta ka dhigataan marka idinka qaarkiin aad markaas sameeynaysan wax loo dul qaadan kara maaha qof walba oo soo caay message-kiisa ma aqrin doono because waxaan iskala weynahay ka dhigan tahay BK waa qof ugu xun ee Soomaaliya loo aqoonsaday idaacadaha Muqdisho ka jira waxay maalin walba ay soo daayaan heesaha BK heesahaas marba idaacada kulmiye aad ugu salaameeyna u mahadsantahay idaacada gadow aad u mahadsan yihiin idaacada kulmiye waxay gabi ahaanba keedka warbaahinta ay ka saartay codka BK doqonka indhaha xun ambassador-ka sidoo kale idaacada gadow waxay gabi ahaanba muuqaaladeedii iyo maqalkii BK okay aniga wax iga galay qofka boqorada reer Hiiraan boqorka meewaan waa boqoradaas kaleena because BK qof uu yeelna agteeda boqorada ay ka tahay wariyaha adiga wax iga galay meesha uu caanayo dadka uu leeyahay maanta isbitaalo badan mid yahay dad fara badan maanta dhaawac soo gaaray guri fara badan waa lagu oonaya guri fara badan maanta casiya u taala dadkooda ay leeyihiin maahan inuu nagu jiro idaacadaha dalka inay gabi ahaanba ka saaraan keedkan BK idaacada kulmiye boqolkiiba boqol oo lagu mahadcelinaynaa sida sharafta badan quruxda badan Soomaalinimada ku dheehan tahay ee codka wasaqaasi ay dhageen nooga saareen idaacada gadow sidoo kale way mahadsantahay
warbaahinada maanta arrintaas taageera idaacadda wadnaha waxaan fariin ugu dirayaa waa idinka codsanayaa please and please idaacadda wadnaha waxaan idinka codsanayaa walaalayaal in aad idinkana sidoo kale aad ka bixisaan kaydkiina warbaahineed codka BK iyo qof walba oo markaasi taabacsan maalin hore cunuga calanka dalka Soomaaliya ku labisana disheen wax lagu xumaaday ahayd waxaa ka sii daran mid buuran oo macasha weyn wuxuu diiday ama uu yiri calanka Soomaaliya wuu hubsanahay adduunku waa nin aad u xun war calankan aniga diidiga dhigi kara xataa karfan waa qaadan lahaa wax lagu xumaado arintaas wax lagu xumaado waaye haddii adiga iyo kuwa kale ay aaminsan yihiin in ay markaasi ay wax iska caadi tahay ma aaminsani aniga adiga ayaa ka fiicana cid aan akhrin doono commentigeeda ma jirto adiga saaxiib afrax bloga sakeysaa haddaad warkayga maqal damir xumadaada aniga ay leeyamaan warnim dadkiina la hadlaya idinka aniga Facebook ku jira ee aaminsan in Somaliland wax jira ay yihiin ala hadlaya bloga sakeysaa dad matiin good for nothing atin waliba rukoonin dhan oo maslax istaago dhahay qaraxeena iyo dhibkeena iyo dhaawacyadena ka hadlaya ma ka hadish duriya dad sharaf la ku nool miya xamar adiga ku hadlaa Abdullahi Afrax dad xamar dad sharaf la ku nool dad sharaf ma ku dhimanay dad sharaf ma ahan miya kuwa geeriyoona kuwa lagu dacdinay adigoo kala nooc blog iska saarata yaanu kugu mashquulin teamkiina kale arintaas waxa laga dhiidiyay way istaayisha BK min fadlakum min fadli waxa idin ka codsanayna heysiis iska dileed awaloo ninkaas dameer camal iska qeydin jiray waxna anfacay ma hada iska dileedo cidna ma ugu heebeysanayno asiga wuxuu yiri cidna uma heebeysanayo jaclaanka aan jaclahay Somaliland ma fahanteen noocan adiga bloga la iska saaraa waxaan aad ugu cudur daaranahay inaa kula sheekaysto madafakkar baa taa udib idinka markan la hadla waxaas wax loo dul qaadan karaa ma waxaas wax oo qof bin aadana uu aaminsan karo ma Soomaali baa leh hal Soomaaliyeed laakiin waxaa la yiri darigii karkarka ka bataa fuud xaraareeya karkarka ka badatay naadir macaan saqiirkiin iyo qarax dhacaba meesha adduunweyneen laga soo leeyahay Turkiga hadda ma masaafo dheer aan noo jirto idinku afka Soomaaliga ku hadlayna afka Soomaaliga loo daay afka insada Soomaaliya looga taga BK ma wada cidna uma heesanaya Somaliland anna Soomaali cid ugu heesanaya ma qof walba inta soo galo magaca Soomaali ugu qabsada ama Somaliland soo heeyay balon wiliba caay tan ugu xunaan dhigi doona BK waa qof ugu damiirta xun ee qaaradda Afrika qof ugu damiirka xun ee qaaradda Afrika ku nool waa qof ugu xun Afrika ilaahay waxa ka bari doona ilaahayna ka bariya musiibo Allah ku ridinkaas musiibo Allah ku musiibo cil dhul meel ay ka yimaado ama gamin Allah ku maamulkaas sidoo kale because qofka soo dhahay qofka dib u sii dambeeyay wuxuu leeyahay Somaliland ama waqooyiga Soomaaliya dad sharaf loo ku nool adeer dadkii ex control ku dad sharaf loo ma ahayn dad muslimiin ma ahayn aniga qof muslimi qof sharaf badan mi kuwa meedadkooda Turkiga loo qaado dhaawac Turkiga loo qaado kuwa kala barmay gawri feeraha ka jaba muslim ma maxaa sabab BK in arintaas yaraado doqonada qofka uu hiliya doqona reer waqooyiga doqona Somaliland doqona all of them wax jira ma war Israa'iil ka fiican Somaliland iska furdibaxa kaliya qolka xirana iska qeylana because damir aan leeyahay waxa ah Soomaaliya ahay meesha wax laga sheegan jooga qofka hadalkayga aan ku qanacsaneen qofka hadalkeena aan ku qanacsaneen blog hana iska kaysaa blog hana saar gabdhihii Muqdisho jooga dhamaantood waxay gacmaha ugu xiran calanka Somaliland BK gacaana heest aan saaran damir Allah idinka qaad aw damirkiin ninka markuu hooyadiin dhimata
meesha kasoo qeylina aabihiin markuu dhinto meesha kasoo soo idinku jeesjeesaay marka adiga dhimatida kugu soo jeesjeesi doona amaanaysaa ninka ay yiraahdaan siyaasiga ay yiraahdaan maxaa yiraahdaa siyaasiga ay yiraahdaan على فيصل علي وراء المسؤول ما هنيا مرك ما أنا والبصومالي عانا قرحة هيستو ورنين وحوام وإلى ما يرى سعادية وضنا در معنا قفل بإيدك إيدين كمدة قبلينا بليس وعيدين قعد سنة الجماعة إنا فرطان قبلي مسلمة قبلي إلهي كعب سنة قبلي نمتقان قبلي الصومالية قبلي هويدا دي آبادي والعليد انت اللي متقول قنانيسا انت بدك صومالي انت يكخفني صومالي وين ايكو انت قعد سنة الجماعة صومالي انت كنت تسيبه إذا عادها دلك تلفزيونات دلك قانك يريد كل مية خاطقات وبيكي يا السوداني إذا عاد ودناه يعني قعد سنة ولا يالو إن هرنت اسمه عادان هدي أي سبعين إذا عاد ودناهم اللي يساس مسؤولك ممكن شخصي تاجرنا اللي يسنوه بنام بحاجة يكون سمعنا بيكي دمبه هستي سنوسو ديننا قبله الجماعة أوتاي أنا كمامل كسمالنا أنا كأنا جنا نقص سحرة بس أنا نقص سحرة وتسيبه ممكن خروج بدن حرته أم أنا كمريكان كخات سمالنا أنا كذا وحناخدونا because قفد الميرلا صوماليا أنا وحنا كحناخدونا قفك سنوع عاسه هبين إيماني وحبرتين أي لو سمعنا هذا ما يبغى يا واحد سبحانك الله قبيل من معنا حسين كرباش هذه كرباش نيو مع بيك مركو صومالي سو أنا حقيقي جتالي حقيقي كل نوعه مركي هوايدا دبتي أباها بنتي ولادك داو على وجود دقينا يا حقيقي جت شخصي وأنا شخصي أنا ما أنتود أنا مع هذه نفتي جاي فرانا قادنا هذا واحد جرا معها دلك وح دلقاد موجودنا يا ملهن عبد المحن حسنو ويهلن وهلنا وين عاين وعينينا وحن يرادانا دهينا ورشلي به دراد ما تيكوري سمع معلومه بسمال ما كجرينا سمال انا عاسي سمال انا عندك سوق ودي هذا اخويا نسوعي وهذا انت كيف سوعي على فيصل علي وراء نسوعي ما انت قدام بيس واحد دغالك دحي دلك يمن Soomaalidii Soomaal wadankoodii u maanaysa la aan iska irin Etoobiyaanka la xambaaray ma karoonana adeer baan wax la yaroonaado ma istaahilaan wallahi dad ma ham dugaag waay waa dugaag waa good for nothing waliba qafkiisa best kale صاحب وامسر لكن انا ما قد ودعنا دقيقه إذا عادها دلك كجرو وهذه قعد سنة إن مر والبا أكتر لسان وحنا كجعلنا يعني للسود بين عدك بيكي إذا عاد كل مية وما سنتا أجسمي أجري حسنات أنا سو كوي كر الله سي إذا عاد البا قضية خير الله سي إذا عاد كذا وما سنين عدك بيكي إني كسران إذا عاد استوديو برنامج كذا بلد جوجنا dad badan ay dhigi doonaan ninkaani waa shakhsi qabaa'ili istishar qabiil oo xambaarsan yahay ma xambaarsanaadeer ma sharkan xambaarsana ninka daraad qiilina markaasi waqooyiga jooga dhahay calankan misanay calankan nacba calankan soonay markii dhahayeen calankan neeqba u dhimat neeqadada u dhaawacant ma nadheena lagu keenay adeer ma dhamaantiin waxay idin ka codsanayaan inaad arintan shargareysaan adduunka ilaahay waxaan ugu nacbahay biikay waxa ka sii nacbahay qofka Somaliland إيران ورنا هذه Somaliland أتانا بلون أنت أنا كسرنا إسار وحجر ما دد ما ودد كوليد أفريقيا من أكتوبر الزوبة مركي وقارح داعي دلك فرنسيسكا أو أنت أصلا مسافر نوجو محلو ينالك وحين تساين قال راسي إن إسكحوني مين دبكاس بس الميه برعجوجي قد قرق دونتان سفرهم محير هذا عنو قدام بيشل محجر جبك سومالي وكفر حسنا سومالي سوم قرح إنه كفر حسنا لما أنتي سومالا مصيبة على هذيكم من ضد مرة ضد إذين خالد مرة بحال شلكو لمتانة قال هذا عملنا ويا رسول الله يدين سوقر
aadaan oo dhibteen Somaliland adduunku ugu necbaayan cida soo qabanayo ay caynayso Somaliland qadku u furin Soomaaliya damiirka ku idaawanay damiirka adiga life soo gal weeyay ama damiirka adiga dadka iskaga dhici weysay anigu igu jiraa waan iska dhicileena waliba wallahi ilaahu ku dhaartay waxaan ku dardaarmaa dhammaan inta aragta intaqaana walaalayaal waxaan idin ka codsana haddii ay noqoto ina walaalayaal waxaan idin ka codsana haddii la dhaho ninkan ilaa uu hargeysa tago uu soo fiicnaana yani geyn waa dhul ay ku nool yihiin dad Soomaalina Ethiopian ka darbidayna xataa meeqa hadalaa intiraadeen oo dhagahina diidan maankeena diidan adeer macna idii marabni waa maasantahay ma fahanteen wax Somaliland la yiraahdo ma aqaan baanay magac keensada wadan keensada diikii hadalkii u dambeeyay oo yiraahdo alxamdulillah soo naftiisa ninkii calooshu weynaa macaya professional ee buurnaa asigana magaciisa maxaa la feerweynk fanaanka dhashada baqtiyo calooshu weyn maxay calanka Soomaaliya ma doonaya anigu barnaamijka kan karfan oo laga dhigo hadii loo dhigi karo dardaarankayga waa bikay adduunku nacbay waxaan u nacbay dadkiisa adduunku nacbay waxaan ku nacay Soomaalida u nacay awli ilaahi anaga nabad noomu weyn ilaahi noomu weyn inaan hormarno ilaahi nabad noomu weyn ilaahi noomu weyn ilaahu rabbi rahmaan rahiim adaabin aaman nasi ilaahu nabad nasi ilaahu rabbi rahmaan rahiim tus bikay waalid bikay ilaahu rabbi rahmaan bikay oo qarxayma kulmay bikay oo ala bikay oo rafaasin ilaahi na tus iyo qoygu saas u garkartay oo idin ka xishoon adeer macna abtiyaal iyo adeeryaal iyo diyaal ehla nootiin oo idin tacelna laakiin sanadatiin ma hor balaayaheedin ku dhacday sanadatiin dabtiin laa u bilaa tala ana waxa ka damir fiicana intii daawanaysa ee inta markaas aaminsan in waxaan wax laga xishooday taa asbuu xishoon waayo oo igu weynaya ani maxaa xishoona asoo xum ويقول حشوة أنا مواطن صومالية ما هو حشوة السوق فرحت كجرو حشوة أنا يقول دب حفاظ السوق ما حنك حشوة زكي بوي بيكي ويلكم باك أتميلكم أتاجنتها أنا واحد go for nothing أو لا سمعنا واحد جرتمع هدا على داون سمعنا داون بيكي داون أنت صومالي هرمك يدك سهول جد قبلها صومالية قبلها حمر جوجو قبلها هو حمر جوجو قبلها مقدش جوجو قبلها مسلمين تا قبلها صومالي ويني وحدين قعد سنة على كاس كعميل مكجرة دت كاس إسكسار إسكبحية قول يقيعد على إسلاتورة صومالي جن إسلاتورة أنيجو جب سو قريبة وان كحشوده أصلا جب كتير محور حشوه وحو أصير جروا ما قرنا nothing ما برا باني هرجيس هذا اللي حتى ماشي كليه كبد بعد من كلمات كان نفتق على هو بداية دي اللي حتى ما هذا يعني مرة الإنترنت كي وحن كسفين دتك قد النموذج نوع عسى يكون جبته دتك مرة كسفين قد كي هذا يدي سلامة إلهي عناس كان يقام Soomaali ha guuleysato waxa israacdo dadka Soomaali ee ku intay ha guuleystaan Soomaali baa leh waraa loo yiri laakiin u dul qaadanayno badda weyn hal malaay oo qurmiiso ma ha malaayga la mitiin badiya la mitiin hadalkeygana malaha hadhow maaya waxa ka dhiganaysiin badda hal malaay oo qurmi hadhow ka dhiganaysiin malaayga badda qurmi waa kuma BK waa meesha oo kulli oo Soomaali ku soo caanay xagee ka jirtay idinka meesha idinka Soomaali ka soo caanay xagee baa ka jirteen BK xag markuu Soomaali lahaa qaraxoodan ku faraxsanahay xamraawinta
dhibkooda ku faraxsanaya soomaalida markuu u lahaa idinka intay jirteen. su-aasha isweydiinta mudan waa su-aasha isweydiinta mudana waxay tahay idinka xaggee jirteen saaxiibya, idinka xaggee jirteen. midda kale waxay idinka u dulqaadi weysinaan mu dulqaadanaya gabdhaha sharafta lahow iska tuura bahashaas. idaacadaha ay kulmiyo u horeyso codka biikeena maqashiinina. inta dhimata Allah u naxariisto, inta dhaawacna Allah bogsiiyo, inta nool Muqdisho ku noolna Ilaahay xifdiyo. gabdhaha Soomaaliyeed intaas ay ku codsanaa idaacada kulmiyo guuleysato iyo idaacada dhowr ee markaas ka soo horjeesta arintaas ee codka biiga xayiraada naga saaray. cod kale labada ah noo diiday inaan markaas mar walba dhageyno ku dhacaan awal baraadanka ma ahayn. waxay idinka codsanaa Soomaali weyne in aad ka diyaar garoodaan cadowga noocaas ah. cadowgu waa fara badan yahay. waxaan u horeeyay midkaas ay Somaliland tiraahday war Somaliland ilaaha ka magan galnay, Somaliland ilaaha ka magan galnay, Somaliland ilaaha ka magan galnay, Somaliland ilaaha ka magan galnay. shirtiina ilaahay ka magan galnay, amaantiina ilaahay ka magan galnay, waxaan la damacsantiina ilaahay ka magan galnay. waxna loo dul qaadanaa cid loo dul qaadanayo ma laha, cid loo dul qaadanayo ma lahan. wuxuu asigoo weyn garan waayay anigana ma garan karo, asigoo nabad ku jiro wuxuu garan waayay anoo dhib ku jiro waxaan ma garan karo. hadduu UK asoo fanaana wuxuu garan waayay anigoo markaas qof caadi ma garan karo. ascaynayna dulli baa tahay, wax aan la jeclayn baa tahay, good for nothing baa tahay. ilaahana ka magan galnay saaxiibayaal. waa maasantihiin caafimaad badan idin rajeynaa. hala share gareeyo. adduunka waxaa u necbahay DK, waxaa kasii necbahay qof taageersan, waxaas ugu sii necbahay Somaliland. Faysal Cali Waraabe ha dhaco, Somaliland ha dhacdo, DK ha dhaco, Soomaalidid ha dhacaan. aad iyo aad aan ugu cudur daarmina nabadda aad maanta aad ku faanaysaan, nabadda maanta aad ku faanaysaan, nabadda aad maanta ku faanaysaan ma heli doontaan. tan kale idin dhahay waxaa ka mid ah saqiirka shala dhintay kuwii xalay baaba'ay dembigooda dusha Allah idinka saar. in qaabta ay la kulmi lahayn dusha Allah idinka saar. dembigooda nabadgood kuwa dhinta Ilaahay ha u naxariisto. idinka musiibaad tihiin, musiiba Allah idin tuso. qofkii iga soo horjeeda arrintaana waxaan leeyahay adeer macaan wixii iiga ka xishoon waay ma ka xishoonayo. war horta su'aal isweydii anoo dhibki igu dhacay oo shalay qaraxyadii iyo rafaadkii igu jiro sidee waxa aniga markaas aan u dulqaadan waay anigoo dhibkaas ugu dhacay waxa aan garan waay maxay iigu garteen asoo nabad ku jiro. nabadu maanta ku faanayo waa nabadee. BK down, Somaliland down, inta ka soo horjeeda down. dhammaantiin markaas waa idin salaama. waxaa idin leeyahay faafiya idaacadda kulmiyo ku maasan tahay afjarka ay ku sameysay codka noocii dameerka BK ahaa. idaacadaha dalkan waxaan ka baryaa ama ka codsanaa inay arrintan daba galaan ay markaas iyaguna ay afjaraan. idaacadda fanka Soomaaliyeed ee wadnaha dad Soomaaliya iska leh, dadkii dhibkii qabsadaa iska leh codka BK xayiraad naga saara. idinkoo wadannimadiina iyo Soomaalinimadiina aaminsan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. shargareeya BK adduunku necbahay waa dameer dulli ah. heesihiisa necbahay yaa la dhegeysan heesihiisa. cid walba heesihiisa iska jar. BK ha dhegeysanin. tan xigta aan rabana waxay tahay war niman yahow arrintaas laga soo horjeesto.